ayaa ka khayr badan buu yidhi xooggiinuuna igu gargaara. waxaan uga jeedaa waa adduun buu gacanta ugu jiray laakiin uu aakhiro ku raadacaynayo. waxaan ku soo koobayaa marka saxaabadii dad shaqaysta, dad xoolo leh, dad baac mushtara, dad farsamo yaqaana, dad aqoon-yahana, wax walba oo lahaayeen. laakiin adduunka wuxuu ugu muuqday dariiq aakhiro loo maro. taa macnaheedu waxa weeyaan adduunka kasbashadiisa dariiq xaaraana umay mari jirin, oo marka hore si ay xoola u helaan waddo ilaahay cisyaankiisa umay mari, waayo waxay adduunka u raadinayaanba inay ilaahay ugu dhowaadaan buu ahaa. haddaad adduunka marka horeba u marto dariiqaad ilaahay kaga fogaanayso dee ma aha kii la rabay. waa midda labaade waxay ahaayeen adduunka iyo aakhiradu dad ay isugu jirto. qoladaa foqorada aan waxba haysanin markuu nebigu tiltilmaamayey muxuu ku yidhi? tasbiix iyo wardi iyo tahliil iyo intaa markii loo sheegay ayaa haddana waxaa la yidhi alamru bilmacruuf wanahyu cani ilmunkar sameeya, dadka samaha fara xumaha ka reeba. markaase haddana waxaa loo sheegay qofka muslimka oo aad caawiso ka faraskiisa wax waliba inay sadaqatay. markii dambe nebigu wuxuu ku yidhi wa fii budci axadikum sadaqa, haweentiisa ninku galmada uu galmoodaba sadaqa xataa buu nebigu yidhi. u fiirso aragtida adduunka ay ka qaba markaa muslimka. aragtida uu adduunka ka qabaa waxa weeyaan waxyaabaha adduunye jacayl xaggeeda ugu xiga waxaa ka mid a xidhiidhka ninka iyo gabadha dhex mara. nebigu cayaaraha uu yidhi cayaara kuma jiraan bay ka mid tahay cayaarta ninka iyo haweenaydiisa dhex mara, iyo cayaarta ninka iyo faraskiisa uu ku dagaalgalaya dhex mara. cayaaraha kuma jiraan baa la yidhi, iyagu laqwi ma aha. waa cayaaro gaar ah oo ajar lagu helo hadduu dariiqa la maraya uu yahay maxay kii islaamku uu faray. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyay waa fii budci axadikum sadaqa, midkiin inuu haweentiisa u galmoodo ama uu la cayaaro ayaa sadaqa ku jirtaa baa la leeyahy. taa macnaheed waxa weeyaan adduun iyo aakhira meeshan ma kala jirto, ee adduunku waa dariiqa aakhiro loo maro. dadka badh baa xadiis ka daciif ama mawduuca soo arooriya addunya masracat alaakhira ma jiro, laakiin macno ahaan waa sax. nebi maxamed weedhuu yidhi oo ka sugan maaha calayhi salaatu wasalaam, laakiin macnaha ay xambaarsan tahay waa macno saxiixa. oo haddaa sawtan culammadu markay wax u cadinayso adduunyada ka taga tidhaahdee adduunyada lacaya, adduunyada wax laga sheego waa geerma. waxay dhahdaan culammadu xaqiiqa waxaa in adduunka caydiisa qur-aanka ku soo aroortay. nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam inuu nacdalay oo lacnah ay soo aroortay. dadka in badan lagula dardaarmay inay kalgacalkeeda ka fogaadaan, laakiin waa goorma? waxay culammadu yidhahdaan waa laba majaal markay taagantay. waa marka ay adduunku iyo kalgacalkeeda iyo la xidhiidhkeedu uu xaajis ka noqdo, wax kaa celinaya xaajisan bayna annaasi wa bayna allahi walyowmi alaakhir. markuu yahay maalku iyo adduunku mid ku dhaafinaya inaad ilaahay rumayso ama qiyaamaha inaad derderto maalinta aakhiro waxba heli weydo, marka waa madmuum. mar labaadna waa madmuum hadduu xoolaha iyo xoogsigeeda iyo ka shaqaynteedu jihaadka xaqa uu kaa reebayo, iyana waa madmuum. waxay yidhaahdaan qur'aanka labada jeer ee adduunka caydiisa uu ku soo aroortay waa labada tan. bal aan nusuus badanoo qur'aan akhriyo, mar qur'aana aan wada tilmaamo ereygaan uga jeedo. ilaahay wuxuu ku leeyahay subxaana wa tacaala qur'aanka wafarixuu biاlxayaati اddunya wama alxayaatu اddunya fi اlآakhirati ila mataac ina aladiina laa yarjuuna liqaءana waraduu biاlxayaati اddunya waطma'anuu biha wاladiina hum can aayaatina gaafiluun ulaa'ika ma'waahum الnaaru bima kanuu yaksibuun. waxaa kaloo alla leeyahy subxaana wa tacaala wawaylun lilkaafiriina min cadaabin shadiid aladiina yastaxibuuna alxayaata اddunya cala alaakhira wayasuduuna can sabiili اllah wayabguunaha ciwaja ulaa'ika fii dalaalin baciid. waxaa alle subxaana wa tacaala u leeyahy walakin man sharaxa biاlkufri sadra facalayhim gadb min allahi walahum cadaab cadiim dalika biannahum istaxabu alxayaata addunya cala alaakhira wa ana allaha laa yahdi alqowmi alkaafiriin. aayaadka aan soo sheegay iyo amhaalkoodii waxay soo arooreen xubu dunyaa ama adduunka kalgacalkiisa oo qofka ka kaxaynaya ilaahay rumayntiisa ama se maalinta aakhire uu xoogsigeeda. markaasi adduunku waa malcuun. adduunku hadduu maalinta aakhire ku ilowsiinayo ama se aliimaanu billaahi uu kaa kaxaynayo waa malcuun.
wuxuu kaloo malcuun yahay haddii jihaadka xaqa uu kaa reebayo. qul in kaana aabaa'ukum waabnaa'ukum waikhwaanukum waazwaajukum wacashiiratukum waamwaalun iqtaraftumuuha watijaaratun takhshawna kasaadaha wamasaakina tardawnaha axaba ilaykum min allahi warasuulih wajihaadin fii sabiilihi fatarabbasuu xataa yaأtiya allahu biamrih wallahu laa yahdi alqowma alfaasiqiin. وإذا ما أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. نصوص تاسي قرآن كي وحي شيغيسا أولو الطول جهاد كبحسنية أما الدد للي حوله إني عرورتي إني يوحا هنتهي ستانية تجارة يوحا هديك فضل دقو jihaadu fii sabiili illahina ka fadla dhigatan baa raajixa. macnaheedu waxa weeyaan laba shay adduunku waa malcuun ama waa madmuum ama shareecadu way ceebaysay. waa haddii xoolo dhaqadka iyo waxa kane ay aakhiro iyo alle ku weydaarinayaan, ama se xoolo dhaqadka iyo waxa kane ay jihaadun fii sabiili illahi kaa kaxaynayaan. labadaa goor waa lunsan yihi qofku. fa ama man tagaa wa aathara alxayaata addunya wa iithaar can alaakhira فإن الجحيم هي المأوى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. آيات كان آخرنا يوردمي وحين لنا هاي وأدونك غفله هرسيدي هرسيدي إن آخرة غافل كالنغطة وأرناني لهي أقبلين مركها مؤمن يكافر منا لقى أقبل مايو هذا أدونك مؤمن كغافل كالنغيو ama gaalka uu qaafil ka dhigayo labada midna la aqbali maayo. ama aragtidan odhanaysa adduunka iyo aakhiro waa laba saf oo iska soo hor jeedo oo haddaad adduunka u jeesato macnaheedu wax weeyaan aakhiraad ka tagtay, ama aakhiro haddaad u jeesato adduunkaad ka tagtay, ma aha baynu leenahay aragtida saxa ah. aragtida saxay waa ta u arkaysa waddo qurun inay jirto oo adduunkan waxa yaallo dhan in lagugu itixaamay lana eegayo dariiqa aad marto, aakhirana inaad adduunkaagoo dhan u wada adeegsato. sidaa daraaddeed baa waxaynu leenahay aragtida tasawufka ama suufiyadu ay xoogga saareen ee ah adduunyada in laga zaahido oo laga tago aan waxba laga qabani waa aragti qaldan. waana aragtidii marka ay faaftay muslimka la gumaystay. muslimku wuxuu gumaysiga galay markii dacfi tiro badani uu ku dhacay. dacfigaana waxaa ka mid ahaa in intii yarayde diinta qabsashadeeda ku hadhayna sawmacaad iyo masaajid iyo meelaha inta la geliyey la yidhi dunidoo dhan ilaaba. de haddaad dunida ilowda adiga iyo masaajidkaagaba waa la isku kin gumaysanaya. masaajidkani nabadgeli maayo, adiga iyo masaajidkaagaba waa lagu gumaysanaya. sidaa awgeed waxay leenahay islaamku dariskeenna wuxuu ahaa aakhiriya adduunku xidhiidhku leeyahay waa maxay. waxaan leenahay islaamku wuxuu yaqaanaa adduun aakhire ku gaadhsiiya. adduun lagu faray inaad bidhbidhsato laakiin u bidhbidhsatid ama ugu raaxaysatid si aad aakhire ugu liibaantid. ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul man xarama ziinata allahi alatii akhraja licibaadih wاطayibaati min alrisq qul hiya liladiina aamanuu fi اlxayaati اddunya khaalisata ywma alqiyaama kadalika nufasilu alaayaati liqowmin yaclamuun. ilahay wuxuu leeyay dadka waxaad ku tidhaahdaa man xarama ziinata allah, waariyaa dadka ka mamnuucay ilaahay subxaana wa tacaala ziinadu dadka siiyey. ziinadu waa maxay? waxay yidhahdaan ziinadu waa shayun zaa'idun can adaruura. aziina hiya aljamaal. jamaalku waa qurux. yaa quruxda reebay baa la yidhi. inaad qurxoonaataa diintay ka mid tahy. inaad qurxoonaataa diintay ka mid tahy. sidaa awgeed baa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa markii nicamku ina siiyey uu alle sheegayey walancaama khalaqahaa lakum fiiha dif'un wamanaafic waminha taakuluun walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun. ilahay wuxuu yidhi xoolaha alla idiin abuuray. xoolahaasi laydiin abuuray baa la yidhi manfac tiro badan baa ku haysataan, waxaa cuntaan iyo wax walba waa ka helaysaan. waxaa kaloo la yidhi walakum fiiha jamaal, quruxna way idiin yihin baa la yidhi. subaxii markay sii dareerayaan malaa intiinan waaba iska yartay nin xoolo dareeriyo quruxdooda arkay iyadoo roob da-ay oo dhulku barwaaqo yahay oo meel waliba evergreen tahay oo aad xoolo sii daysay oo intay barqada kuu dhergeen ay iska wada fadhfadhisteen. waa markay noloshuba ugu qurux badantay.
يعني نولك قروح بدن مركي زينتها إلهي بقرآن كشيء يوحو ليه ولكم فيها جمال